haddii aa hore u maqashay si fudud lacag ku sameey, qaabkan lacag ku sameey, maanta waxaa idin hayaa sheeko cajiib ah oo aad la yaabi doontaan dadkan sida ay lacagta ku sameeyaan. Paparazzi waa kuma? Paparazzi waxaa lagu yeeraa cameraman iskii u shaqaysta ama naftii u shaqo taga. Haddii aad Google ku qorto paparazzi, waxaa arkaysaa dad badan oo caan ah oo ka hadlaya ciwaanka. Dadka caanka ah marka ay maqlaan paparazzi waa yaabaan. Get paparazzi and I try to run away, as fast as I can. Waxay xasuustaan inuu yahay qofkii u diiday noloshooda shakhsiga ah inay ku raaxaystaan Okay, because you're kind of scaring me. Okay, well, there's the other xilliga ay guys here. shaqooyinka ganacsanayaan, haddii fanaanin yihiin, haddii actor yihiin, hadday ay yihiin modelis. Intaba waxay ka cawaadeen cameramankan freelansiga. Paparazzigu in badan waxay ka howlgalaan wadamo badan oo caalamka ah oo ay ku badan yihiin dadka celebrity-ga sida Bollywoodka, Hollywoodka Mareykanka. Laakiin ciwaankeena maanta waxaan kaga hadli doonaa kuwa ka shaqaysta dabagalka iyo xirsiga aktarada Bollywoodka ee Hindiya. Haddaba qofkan subaxii waxaa soo qaataa kaamiradiisa, qalabkiisa, nalkiisa, taleefankiisa. Waxay yimaadaan goob ay badanaa ku kulmaan dadka asiga ay shaqo wadaaga yihiin, ama ay isku fikirka yihiin, ama ay isku xirfad yihiin. Waxaa isweydiinaysa ama su-aasha hadda maskaxdaada ku taagan waxay tahay, qofkan si uu ku ogaaday qofkan kale celebrity-ga locationkiisa ama adresskiisa saxda ah? Waa su-aal muhiim ah runtii. Haddaba dadkan paparazziga ah kaligood iskama socdaan. Badanaa information-ka waxaa soo siiya dad ay ka iibsadaan xogta ama sawirada ay maalintaas soo shaqaystaan. Qof walba waxaa ka filan maalintii 20 picture hadduu helo oo cusub ah iyo 10 second video ah si uu internetkiisa baraha bulshada ugu publish garaysto. Midda oo ka caawinaysa inuu si shakhsiyan ah asiga u samaysto income asiga u gaar ah. Haddaba waxaa jira dad caan ah oo lacag ku bixiya in ay helaan dad ayaga dabagala information-kooda mar walba baraha bulshada dhiga si ay ayaga u helaan hadalhayn joogto ah, aysan masraxa uga bixin. Aktarada qaar sidaas sameeya ayaa jira, sababtoo ah mararka qaar waxaa arkaysaa qof airport kasoo degayo, haddii waa hal qof ogow oo keligii iyo boorsadiisa wada socda, waxaa arkaysaa cameraman badan oo iridu ku sugaya. yaa u sheegay ninka waqtigu soo degayo. Dee waxaan waa tiim isku xiran oo ah aan wada shaqaysano. Shaqadan paparazziga waa shaqo riski ah, sida uu afkiisa ka dhawaajinaya yarka kan idin muuqda oo horay howlahan ugu shaqaysan jiray. Hadda ka hor ayuu wuxuu kala kulmay fal aad xasaasi u ah aktarka weyn ee Pulkit Samarat. Mar uu kasoo baxay rootingiisa dheeliga ah, moodkiisana uusan saxnin, aadna u caraysnaa, ayuu ninka kan wuxuu ka qaaday video iyo sawir markaa xatooyo ah. Ninkan oo arrinka aad uga xalool xum ka sheekeynteeda ayaa wuxa uu leeyahay, anigu waxaan ahay qof paparazzi ah, shaqadeydu waa inaan sawir qaado, waana midda aan anigu mushaarka ku qaato. Subaxii waxaan usoo shaqo tagaa inaan helo sawir iyo video yar oo aan shaqadeyda ku ilaashado. Paparazzi macnaheedu maxay tahay? Paparazzi waa xatooyo, inaad qaado video oo aan raalli laga ahayn. Midaasna waa shaqadeyda, mushaar ayaan ku qaataa. Runtii maalintaas aad ayaan ugu xumaaday, waan xanaaqay. Waxaan dareemay inaan aniga falcelin sameeyo, laakiin maan awoodin midaas, sababtoo ah asiga waa qof caan ah, celebrity ah, indhaho dhan ay hayaan. Aniguna maxaan agtiisa ka ahay? Qof yar oo aan muuqan weliba. Sidaas daraaddeed wax aan sameeyey ma jirin, nafsadeeduna ayaan control. Runtii sida idin muuqata marxaladda paparazziga waa marxalad runtii 50-50 ah. Hadda yarkan kala idin muuqda wuxuu mootadiisa, qalabkiisa intaba u soo qaatay si uu u dabagala aktarada caanka ah ee Raveena Tandon oo markaa u socotay oo ayada khaas u ah. Laakiin ninkan information uu ku helay in aktarada ay u socoto goobta ayada iyo gabadheeda. अभी गाड़ी पहुंचने से पहले हमको पहुंचना है. Wuxuu soo rafaadaba gaariga dhanba u soo raaco mootada sida speedka hadba gaariga uu bursanayo ula daba raaco. Ugu dambeyn wuxuu yimid goobtii ay aktarada tegaysay si uu u helo
shaqadiisa uu usoo shaqo tagay. हिट जा रही है मैम देखी देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ugu dambeyn waa ka ninka helay kilibkii iyo sawirkii yaraa oo aktarada ka raadinay, laakiin dareemayo xoogaa qanacsanaan la-aan maadaama aktarada aysan la soconin gabadhiida. waa sida markii hore uu informationka ku helay, laakiin xaqiiqada aysan ahayn. haddaba waxaad isweydiinaysaan, dadkan shaqadan isaan ugu rafaadayaan yaa mushaar ku siiya, yaa ka iibsada fiidiyowada? badanaa dadkan waxaa ka iibsada kilibyada ay maalintaas soo helaan dad la socda dhacdooyinka Bollywoodka, maalin walbana falanqeeya oo public figure ah oo marka ayaga ay isku xiran yihiin. haddaba si aad u ogaataan xogta meesha ay ku dambeydo, dadka ka iibsada, qaabka loo kala iibsado, intaba waxaan kaga falanqeyn doonaa fiidiyowgeen xiga.